السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشينا جواهر حسين هل كأدنا جل سعتان نوع channel جواهر حسين ما سعيد جدا وقيري هاي وحسوا حسوستي إن قصوين يقول عن قصة كمذا طبعا إن وخيرو ذي وحنا جعله يستي إن أيد اللو ذا وحنا جعله يستي إن أيد الشر قريو إن لبعض هذا أن كلا سو كل مي تهريب كي مت كمذا أمانة إذا اللو ذا جايا maanta idin la wadaagaya insha Allah taala maxaa kamida intees igugu dhacday sidees igugu dhacday dabcan tahriibta dhibaatadiisa waa ognahay aan ku bilaabo sida tan Jawaar Xuseen waxay joogtay Kenya markay joogtay markaas waxa igu soo dhacday inaan wadankan Kenya aan ka tago أن تهريب إسكا قالوا تهريب إسكا آدو أنا آدو صوت السودان كدبنا وحي مركز إلى قد بونادو أن كل دقاقو خلاص أنت عن صوت السودان سو قارن محل لباتون كلا كلمة أنا طبعا وحير العجاء سكو أرور صدي وحرادية جاري إيسو كحياة صوت السودان وحرادي جاري إيسو كحياة صوت السودان وحرادية الحمد لله وحو إلهي سبحانه وتعالى إيسهلي gaari soo Suudaan ikeena gaari weyn ah gaariyada xamuulka soo qaado alxamdulillah waan helay lacagtii ku heshiinay lacagtii markaa ku heshiinay gaarigii soo raacay gaarigii markaa soo raacay wuxuu ii soo sameeyay wuxuu ani iyo hal gabar kala isla soconay wiilalna weyna la socdeen dabcan wiilalna weyna la socdeen waxaan soo soconay wiilkii wuxuu noo sameeyay warqadooyin uu noo soo sameeyay warqadooyin oo warqadooyin oo aan jirin oo wadanka markaas u socon aan ku galayno oo noo soo sameeyay waxaan soo soconaba alxamdulillah waxa imaanay waxaan soo soconaba gaarigii naga jabay gaarigii marka naga jabay wuxuu naga jabay qayb kamid ah Uganda meel la dhaha Gulu qofkii yaqaan meeshuu gaarigii naga jabay gaarigii markuu naga jabay meeshii kaneeco إلهي وكورويه محيرة مسقول لآن إلهي وكورويه جاجو أفر مالمود وحو قاري نوجب سنة وددي وقاري نوجب سنة أفر مالمود كبعد ما أنت شناد الحمد لله الله به وقاري كجبي لكيني ولا ركبي وصوبحني marka soo baxnay waxaan nabad iimaanay soo Suudaan xuduudeeda nabad iimaanay marka nabad iimaanay dabcan wiilashii gadaal gaari gadaal la geliyay meesha oo xad daboolan dhaxdooda la geliyay alaabaha dhaxdooda la geliyay wiilashii alaabaha dhaxdooda adinka wuxuu yiri wiilkana waday adinka dumara tihiin alaabahan dhaxdooda ma idin gelin karo horadiina iska saarnaada warqad askarigii oo markaas oo idin dhahane maxaa tihiin warqadahan la u dhiib haba la hadlina waayahay dhahnay shirkii aska saarneene askara noo imaaday oo soo Suudaanees dabcan waa xuduudi waxay noo keeneen way noo imaadeen waxay dhaheen yaa tihiin ma u jawaabin dabcan wiilka hadalkiisa ahaa waa ina dhageysanaa warqadihii yaa tusinay warqadihii markaa tusinay warqadihii oo fiiriyo hore iyo gadaal oo ka fiiriyo wuxuu niyiri soo dego dhahay soo dega waa soo degnay markaa soo degnay waxayna galiyeen immigrationka oo soo Suudaan ay galiyeen markayna galiyeen waraysi dheer ka bacdi dabcan ma hadlin anaga xoogaa marka aamusnaan wana la handaday waxa nala rahaa hadaadan hadlin xabsi aan weligiina ka bixin la idin geeyna طبعا لغة أو عربية حوجا ير مركز أو كورونا ولو عربي جود أن فهمينين إن حوجا ولا هضلي إن ساسنا هاي دتكاسنا هاي مش ساسنا كسوق قلنا أدي وحيا أوش الشجنة وحيا مركز أوش الشجنة وحيا ندهن إن ويلشي أنا قصود دوا قلين ويلشي مركز نقصود دوا قلين وحيا ندهن ماشى كي معدن ونقدين ندهن نجيبلها ماشى كي معدن وإني ونقدان أوكي وصوب بحني مركز صوب بحني طبعا أنت كإيمان ما لك إيمان ما لهن حدود هذا حدود وضع كصوب بحنا وحاسوق لنا حدود يوغندا سوق لنا حدود يوغندا دي مركز سوق لنا يوغندا دي هذا نبها نسيسته عسكرت يوغندا سك نب نسيسته عسكرت يوغندا سك مركز نب نسيسته الله مستعان وحين جيس هذا إميجريشن كأنه لقي إميجريشن كي مركز نلقي فرحان نلقى قضياتهم سوماليات نهاي
Soomaali maxaa cadeynaa inaa Soomaali tihiin wax sharci ama wadano dabcan tahriib waa ku soconaa sharci wax la dhahaa ma wadano markaas waxaan dhaheen Soomaali inaad tihiin wax cadeynaya malamiya maya farahay naga qaadeen oo farahii naga garaaceen ani gabadhii kale farahii markay naga garaaceen waxay dhay wiilashii naga soo daba galeen hadana siib wiilka oo gaariga waday markuu soo galay wiilkii wuxuu yiri gabdhahan maxay radaa si Soomaali haday yihiin aniga wado ma dhahayo laakiin wuxuu yiri Soomaali haday yihiin maxay radaa ana garab siinaayo ana saaciday maxaa loogu baahan yahay gabdhahan waxa la xabsi la geeyna talaana wajaha wareertay maxaa la sameeyaa xabsi la soo qaaday aniga meeshii ma aqaano ayadi gabadhi sidoo kale gabadhii xoogaa taqaano gabadhiina waa cabsanaysa ani kadalik sidoo kale waa baqdina ugu jirto xabsi markaa maqalna runtii waa argagaxnay waa naxnay waxa sameeynaa wayne waa soo baxnay waan la soo waday askarana soo waday waxaana la keenay meel oo xabsina ah ma aqaano gurina u eg xabsina u eg I don't know wuxuu yahay ilaa hadda ma sheegi karo meeshana la geeyo qolana lagu xareeyay ani gabadhii qol markii lagu xareeyay dabcan wiilkii waxaan ka soo qaadanay numberkiisa ka soo qaadanay warqado ku soo qoranay hadii lacala dib uu dhaco in aan soo wacno anaga waxaan hadii lacala uu wax dhaco in aan soo wacayna waayahay qolkii ana la galiyo qolkiisa ugu jirno waxa maqleynaa qaylo sawxan gabar dumar yani gabar ma ahan yani dad dumar badan ba ama gabar kaligeeda ilaa hadda waxay tahay ma sheegi karo oo qaylinayso yani meeshii waxa ka ogaanani gabadhi iska dhaadhicin meesha inuu kufsi ka jiro oo si Allah la si ugu bixi karnaan ugu baxno meesha waxa sorry asxaabay meeshii waxa dareennay inuu kufsi ka jiro meeshii waa iska ani gabadha ma iska dhaadhicinay ma xaqiiq ba ilaa hadda ma sheegi karo marka gabadhii yani waa meeshii oo hin ku barooranay waxaan dhahnay maxaa sameeynaa wiilkiya wacanayna wiilka inta ka wacanayna telefoon ma haysane telefoonkii gaariga ugu soo tagnay albaabkii garaacnay markaa garaacnay taban askara noo imaaday askartii markay noo imaaday maxaa idin daareen dhaheen waxaan dhahnay maxaa ilaada si anaga telefoon u baahanahay telefoon inaad dirsanna u baahanahay telefoon rabnaa telefoon ay nasiiyeen wiilkiya wacan waxaan meeshan laazim inaan naga wadid waa meeshan ma joogi karno waa la isku kufsanaya anagana waa cabsanaynaa meeshan ma joogi karno meeshan kufsiya ka socdo dumara qaylinaayo maxaa ilaada si ma dumarka inay wax soo haleeyana laga yaaba oo sidaas loo dilaaye idin socoto ma lehe meeshina jooga waxaan ahnay ma awoodno inaan joogno meesha ma awoodno laazim meesha inaan naga wadid waa meesha waa naga wadaysaa markaas aan way ku dhahay wiilka waa noo imaaday uuna soo kaxeeyay markuu soo kaxeeyay dabcan askartii oo la hadlay wuxuu dhahay gabdhahan ani meel degsanaa maxay radaa si ana meel degsanaayo meeshan ma ku sii jiraayaan markaas askartii waxay dhaheen okay meel hadda degsanaysid laazim in damaan laga dhigo waaye maxay radaa si wax dhig markaas wiilkii wuxuu dhigay sharciyadiisa dhan oo dhigay sharciyadiisa markuu dhigay waana la soo waday hoteelana la keenay hoteelka askartan way nagu og yihiin wiilkina uu nagu og yahay meeshii haddana waxaa ku jirnay 3 maalmood oo ku jirnay 3 maalmood xabsi guri aan dhihi karaa xabsi guri oo ku jirnay askar aan ugu ilaalinaysay oo wiilkiya sharcigiisa iyo baasaboorkiisa iyo wixiisa dhan lagu haystay bas markaas waxay dhacday 3 maalmood lacag iyo balaay iyo adduun waxa la bixiyay markaas waxa la lahay go'aan waxa lagu soo gaaray immigration ka noo celiyay immigration ki markii noo celiyay maxkamadda waxay dhahday lahay in gabdhahan meesha ay ka imaadeen oo Kenya emailhaas in lagu celiyo meeshan hadii lagu arko xabsi daa'in lagu xukumayo waligoodan ay ka soo bixineen wiilka wuxuu yiri ani ma aqaan waxaan sameeyo maxay radaa dhararkana soo dajinaa waqtigeegan wuu ii dhamaadee bal maxay radaa hotel la idin geeyna inta ka soo noqonayo hotelkiina jooga bal waa arkeena wixii say tala noqoto arkeena
waayaha iska dhahna dabcan maxay radaa hotelkii aan la soo oo keenay wiilkii hotelkii markana keenay tookadan askarna ma ogo hotelkii markuu nageeyay 3 maalmood hotelkii ku jirnay hotelkii 3 maalmood markaa ku jirnay waxa dhacday wiilkiina soo maray markuu rarkiisa soo degsaday wuuna soo maray wuxuu yiri khalaas intaan ka bacdi waxa idin qaban karo ma lahan intaan ka bacdi waxba idin ma qaban karo waa idin celinaa Kenya idin celinaa kadib waa arkeena say wax noqdaan hada idin soo celin karo iyo hadii kale waa arkeena marka Kenya idin geeyo arkeena irarka labaad bal waayaha iska dhahnay gaarigiina soo saaray gaarigii markuu na soo saaray xoogaa markaa soo soconay meel hadana kumi la dhahaaya imaanay meeshii markaa imaanay gaari oo sii socdo oo maxay radaa si soo Suudaan u sii socdo meesha soo istaagay tabcan way is yaqaanin gaariley isla yihiin waa is salaameen marka gabadhii ani la socotay waxay dhahdeen maxay radaa si ani ma joogay dhahdeen maadaama gaari heshay gaari halkaas u sii socdo laazim gaarigan waa ina igu ogaataa waa ina isaartaa gaarigan igu ogooway dhahday isaar aniga ma rabi maxay radaa si Kenya ina u noqdo gaarigan ina isaartida jirte maxay radaa si isaaray dhahday isaar wuxuu yiri maxay radaa si sorry asxaabi gabadhii waxay dhahday laazim gaarigan ina isaartid waaye ani waa noqonaa ani hadafa u soo baxay hadafkayga waa ina gaaraa waana ina ka mira dhaliya markaas wuxuu yiri waxa xasuustaa kelmado dhahay heblaayay ma iska joogtid ha bixine meeshaas iskaaga noqo markaas waxay dhahday ma jirtay dhahday aniga ina baxay jirto markaas kelmad afkiisa ay ka soo yeertay wuxuu ahaa ma dhiman rabtaa gabadhaas qisadeedan oo idin sheegi doona insha Allah ta'ala adu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo Ilaahay ha u naxariisto ma dhiman rabtaa ayuu dhahay ma dhiman rabtaa ayuu dhahay waana la soo celiyay Kenya lagu soo celiyay insha Allah qaybta labaad idinku kamila adu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo insha Allah أصحابي وحقيقة إذن لو ذاقي طبعا ويقصوا دعذي وحان ربي إنا إذن الشير قريو طبعا لو قد كلا كوهالاني إن عربية كوهالا عربي هذا الشير قريو وأوهاي إن إقيرون عيان وهو إن محيرادا قف كلي جذا أو محيرادا مركي أغيرتها لو بلود ودوك سو جرتي لبعضها إلى سو كل مكرتو وحيابها إلى سو كل مكرتو طبعا إن محيرادا أسوي دريمان لكن وحربا ددكيغا إن إدريمان ددكيغا إن أي دريمان لبعضها أن سو مري ددكيغا إن محيرادا أسي أي وح كبرتانا ربا مر walba waxaan jeclahay wixii markaas isleeyahay maxayraad dadka wixii ka faa'iidaa in idin la wadaago runtii way igu soo dhacday maanta dhan waxaan islahaa maxayraada yaa la sheer gareysa markaas ay igu soo dhacday in dadkaaga Soomaaliyeed waxaan islahay dadkaaga Soomaaliyeed la sheer garey qaarna ha ogaadaan tahriibta dhibaatada ay leedahay qaarna maxayraada asi digtoono ha ka ahaadaan marka waana mahadsantihiin maxayraada waqtiga igu dheeraaday waa idin soo gelin doonaa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiga ii saamaxo insha Allah ta'ala خير عافمادان إذا رجينا وحكلا إذا كما عدسنا يعني إنا إيشير جريسان أصله وذاكتان هدو إلهي سبحانه وتعالى رالك النقطة هدي إذا عجب السنة إن أنت لمن إذا دمستر أنا جاب الجعل بإنا إذا دمستره وإذا صوت دمسترها يعني إن شاء الله خير عافمادان إذا رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته